Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada janalkiina maasha allah waa aniga walaashiina isku soo laabasho wacan maasha allah waa la kala maqnaa alxamdulilah haddaa ay caafimaad qabtiin anna waa idin caafimaad qabaa isku soo noqosho wanaagsan anigoo caafimaad qabno ilaaha ugu mahadinina marka halkan waxaan kusoo sameysanaya biskud inaba aan caadi ahayn oo maasha allah oo caruurta aada ugu fiican oo uga maarmi kartid biskudka banaanka aad kasoo gadaysid hadda kor waa soo geliyey haddana mar kale soo celiyey maasha allah biskudkan waa biskud aada u fudud gurigaa ku sameysan kartaa caruurtaadana waa ugu nooleysan kartaa maasha allah casriye camal oo ku fiican caruurtaada casriye galabtii caanaha ku siisan kartaa aada u fiican yahay biskudka baa guriga aad ku sameysanaysid waxaa ku darsatayaa hubtaa laakiin biskudka banaanka waxaa lagu daray ma hubtid marka waa kana maasha allah waa kana alaabtaana ku sameysanaynaa marka waa kana alaabteena halkaana ku haysanaa maasha allah waxaan ku haysanaa 2 koob oo sokor 2 koob oo saliida iyo sisin waa kana ujeediin caano booro 2 qaando sisin ah 6 xabo ukun ah maasha allah baking powderki 2 koob oo sokor ah 2 koob oo saliid ah vanilla oo ujeediin heel ku darsan kartaa hadaa vanilla haysanin ama vanilla hadaa haystidna waa isticmaali kartaa heelna waa ku darsan kartaa baking powderkina waa kana maasha allah blenderkan inta waan ku haysanaa howl fududeys ay noo tahay marka qasoo iyo gacan maanta dhan ku wareeji waxaas dhan ma ku sugeysaan ku dhahay blenderkan le hal mar isku darsane biskud aad u fiican aad u macaan waa kaaga soo baxa burkana waa kaasa kiila waaye intaan bisaab u baahan tahay waa kana haddana isla socod wanaagsan sidaan isku qasi doona nala socda walaalihii qaaliga ah blenderkii waa kana mashiinta juuska lagu shiidanayo waaye hadda ukuntii aan ku shubanaynaa waa ujeediin hal xabo ukun ku darnay maasha allah midii labaadaan ku daraynaa nala socda ukuntii saddexaad haddana kusii daraynaa ujeediin 4 5 6 xabo ukunaasaan ku soo shubanay blenderkeena maasha allah waa aad u fudud yahay maasha allah caruurtaada guriga ugu sameyn kartaa anytime aad jaanis haystid aa u sameysan kartaa maasha allah 2 koob oo sokor ah aan kusoo darsanaynaa nala socda maasha allah saliid inta kusoo dareynaa 2 koob oo saliid ah halkaas waa ujeediin subagna waa ku darsan kartaa hal kooba wax yar ka dhimaysa 2 qaando subag ku darsanaysa kuwa carfinaya subag hadaa haysan labadaada koob saliid ku darsan kartaa muhiim ma ahan marka waa kaasa walaalihii kiilo waaye laakiin nus kiilo markay tahay camal 3 koob oo waxaa isticmaalaysaa 3 ukun 3 xabo ukun ah 3 xabo ukun ah iyo hal koob oo sokor hal koob saliid isticmaali kartaa marka wax walba hadda ani hal kiilo ku sameeyay adi xaf u sameysan kartaa marka nus kiilo bur rabti inaad ku sameysatid hal qaando waxaa ku soo daray oo baking powder ah qaandada yarista waaye ujeediin waa hal qaando yar waaye asahata vanilla-ga sokorta wixii dhan aan kusoo shubnay maasha allah caanihiina waan kusoo darnay waxaan ka reebnay malahan waa caano booro 2 qaando caano biyaha isticmaalin caanahan oo caadiga broxetka ama caanaha oo lo'da caadiga ha isticmaalin caanaha oo waxa isticmaashaa oo budada ah 2 qaando ku darso maasha allah carf macaani kaaga dhigay hadaa haysanin waa iska dhaafi kartaa laakiin uu sii fiicnaysiinaa maasha allah ujeedada blenderkii aan kusoo shiidanay mashiinta juuska sidaan kusoo dhameynay hadda waa noo diyaar asxaabi oo noo soo shiidmay ujeediin aada u fudud yahay maasha allah anytime aad jaanis haystidna waa sameysan kartaa hadda waxaan kusoo shubanay baaquligaaniiti baaquligan ku qasan lahayn waaye asxaabi fiidiyogan hanaga iloobina inaa noo sheer gareysiin subscribe noo saara like-na noo badiya dhiirigelinta commentigana waa xageena maasha allah halka kiilo burka ahaa aan kusoo qasayaa si fiican aan kusoo qasaa marka qasoogana sidii oo jabaatiga camal ama ceeshka camal waxaas ha u qasin markaad la qasaay geesaha maaragta gacanta saas loogu soo gelgelinaa saan ii jeediin mooyeen hal mar ma xashiisid marka zaid ha u xashin geesaha saas ugu soo gacanta ugu soo gelgeli marka asaaba isku qasmaa maasha allah
haddana waxaan kor ugu soo darsanayaa waa ujeediin sisin waaye. Sisinta xoogaa yar dabkaa kusoo dubay, taasaa idinka iloobi sorry. Xoogaa yar dabkaa kusoo dubay markaasaa ma aragtay aan kusoo shubay waa ujeediin sidii jabaatiga camal ha u qasin geesaha gacantaas ugu soo gelgeli ayadaa isdhex galaysaba. hadday laakiin si jabaatiga u qastid buskudka muxuu kaa naqanayaa qash, ma fahanteen? waa ujeediin siduu u kala babaxsan yahay saasaa la rabaa. saas inaan u diyaarino soo buskudka ma aragtay oo qash kaaga naqanin. marka aad ha wax xashin geesaha lay gacanta saas ugu soo xash marka, ma fahanteen? marka waa kaasaa walaalahayga hadda waa noo soo diyaar garoobo. waa kana buskudkeena aan soo qasnay diyaar waaye. hadda mashiintii iyo wixii aan soo diyaarsanaynaa. marka nala socod wanaagsan walaalahayga qaaliga ah. marka hadda waa kana mashiintan oo hilibka lagu shiidanayay inta ku haysanaa. marka birtina xaggaan ku gelinay. marka waa idin tusin doonaa insha Allah. haddana waa kana walaalahayga mar dhow video ma soo duubin marka maanta ha ila yaabina hadalkayga marka mar dhow video soo duubin cod saarin saan camal waaye. hadalka dhan isku kaa darsamaano. marka waa kaasaa sidaan ku soo dhameyn doonaa. mar walba marka waxaa sameynay markaad cajiinka meesha soo gelisid oo mashiinta dhex gashitid wax yar bur saas ma aragtay ugu shub. marka saas ugu rariix. marka ugu rariixid buskudka aslan wuxuu kuu noqonaa maasha Allah waa kuu noqonaa aslan waa kala daadinaa hadhow buskud oo cajiin camal ma kaa naqanayo. buskud aad u macaan oo fiican oo kugu soo baxaha nashqadana si qurux badan ay kugu soo baxay. marka waa kaasaa walaalahayga nala socda sidaana kusoo dhameyn doonaa saxanka hadhowna waa isla sameynaa. nala socda walaalahayga qaaliga. waa ujeediin saasaan usoo rariixay maanta dhan saasaan u wareejinay intaa ka dhameynaysaan ku dheh kiilada buskudka aad u fudud yaa ujeediin sida ugu fudud oo buskud u samaysan kartiin gurigiina idin tusinaa maasha Allah. maanta videogaana rabay inaan idin la qaybsado buskud aad u macaan oo caruurtaada anytime gurigaaga ugu samaysan kartid waaye. caruurta buskud way iska jecel yihiin maasha Allah. ilaaha noo dhaafo. marka time heshid oo tuur insha Allah. waa kaasaa haddana geesiisaan soo jujumaynaynaa. geesaha saas usoo jumaynaynaa. sidaana kusoo dhameyn doonaa insha Allah biidniillah. haddana kaas xoogaa wuu dheeryahay dhib male waa jaraynaa. bahasha biizaha lagu jaraayo waaye. haddaa haysanin mindiyaa ku jaran kartaa ama ku jumaysan kartaa. mindiyaa isticmaali kartaa dhib malahan. marka waa kana walaalahayga qaaliga ah sidaana kusoo dhameyn doonaa. haddana foornada gashanaynaa intaan yaraan soo jumaynaa. hadda kulli waa isla sameeyaa maasha Allah waa ujeediin sidaana kusoo dhameysanay saxankan. marka inta kalena waa sii dhameynaynaa. hadda foornadaan sii gashanaynaa. nala socda birtaan isticmaalaan waa birtaan. waa kaasaa mashiintaada hilibka ku yaala birtaas usoo gadanay. marka waa kaasaa buskudkii hadda foornada kasoo baxsanay sidaan quruxda badan oo lagu soo baxay maasha Allah waa ujeediin lagama sheekeyn karaan ku dheh qafiif aslan waxaa waaye ku dheh afka markaa gashitid aan ku dheh afka ku dhalaala maasha Allah. ilaaha noo barakeeyo intay haysanin ilaaha siiyo. marka waa kaasaa tartiib aan ku dhahay wax kaaga dhadhigay dhan mala mujeediino tartiib aan ku dhahay saxanka ugu soo fufujinaynaa. nala socda walaalahayga qaaliga ah maasha Allah. sidana kusoo dhameysanay ujeediin qafiif aslan maasha Allah waaye. buskud fiican oo casariyada ku fiican waaye. marka nala socda insha Allah biidniillah. sidana kusoo dhameynaynaa kuligooda. waa kana asxaabe waa soo dhameynay buskudkii sidaan noogu soo baxay maasha Allah. marka haddaan ugu cusub tahay walaalahayga qaaliga ah please subscribe noo saara like share aan ugu iloobin. haddaa hore nala joogtina like share commentina waa dhinaciina.
maasha allah waa aniga walaashiina idin soo laabtay isla socda insha allah isla socod wanaagsan hada kadib fiidiyoyaan oo soo gelin doonaa waa la kala mashquulay adduunyo mashquulkiisa ma dhamaado laakiin waa la kala mashquulay insha allah hadda idin soo laabtay fiidiyoogaaniiti fiidiyoo ku xigo waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh